wiilow waxaan ku weydiiyey waa maxay qolkaaga inaad moodid dagaal saddexaad adduunka inuu ka dhacay qolkayga maxaa ka shaqeeyay calashaan brefatsi dariiqii walaalka ay kaa weynaabad martay miyaa waxaa ka baxoo waxaan iga kala hagaaji waad ogta wax isdhex yaalla waa necabahay hadhow markaa soo laabtaa hagaajinaa bixi maysa adoon hagaajin saa u ogow meeshaan u socda hadda ogaan lahayd bixi mays maada ile meel nooceed u socotaa gabar iga dhex qadeynayso waa leeyahay ii hay hooy aniga aabbahaa way iska dhex quraacan jirne maxaa tiri gabadh baa iga dhex qadeynaysa jeceliyaa sheekooyinkaasoo kale soo fadhiiso soo fadhiiso sababtaan kuugu tababaray inaynaan waxba kala qarsan waa sababta warka isii hooyo magaale warka isii qabow baa jire hooy hee waa gabar quruxdii iyo dhirankii taada cadle allow u naxariiso cajiib haye firfircoonidii iyo jalaqsanaantii nasteexa indhale cajiib haye eredkii madoobaa cajiib iyo qosol wanaagii feenus sheekh daahir maasha allah akhlaaqdii iyo deganaantii hee maasha allah hooyo inta yare ka dhimanayba waa intayda waa qarankiiyo guurguuranayee taa ii keeno ii balballaari hooy hee hooyo ku bari karaa gabadha waaba qaran dhare ma adaba ka saar hooyo ii keen tan kaa dhex qadaysay ii keen hooyo waxa aan kuula sameeyey kontaktiga noocana inaadan cadowgaaga hooyo u jabin dadku kuu noqon maayaan saan anigu kuu noqonayo kuuna dareemi maayaan waan ku faraxsanahay wixii qalbigaaga ku jiray inaad ii sheegtay hooyo mise sanaad arrintan wadayo mise bilood bad wadayo 4 sano afara hooyo ma afar bad iga qaranaysa dee xeerkeenu saa ma ahayne shuruuddiinoo tiili baa jebisay hooyo hooy ee hooyo waan kuu sheegi lahay ee hooyo ee diyaarad baa saan iyo saanba ugu socotay alla safaradeeda maxaan wax ku seegi lahaa taasi dhan walbay ka wadataa dhowr qofe aniga aabbahaa dee wuxuu ku fasilay quruxdayda kuma macnayn karo hooyo sheeko arqabowna waa jira odaygina waa maqan yahay qodqodine iga tago gabadha ii keen